halkaanu taaganahay waxa bariga aanu jeedo inaka xiga 1 mitir oo ah safety area ama clearance-gii meeshii diyaaraddu hadday halkaan break intay ka weydo ay caradho ay ku badbaadi lahayd waa 1 mitir si guud aeroboorku sida digreetada madaxweynuhu cadaynayso waxa weeye 2 kiiloomitir oo badda ka soo kaca buurtaana dhaafa ina ku maageersan iyo 8 kiiloomitir oo ka soo kaca toga baalade halka dalcadda oo meeshay ka qodan tahay buundadu ka soo kaca oo taga dhinaca qaw banaanka taga horta aeroboorku xuduudiisa ama dhulkiisa ama baaxadda dhulkiisa ama masaafada dhulkiisa waxa weeye 2 kiiloomitir oo badda iyo bariga ah iyo 8 kiiloomitir oo bari iyo galbeed okay waxa sili ku wareegsan yahay oo xaydaaman oo hadda u xiran aeroboorka 5400 oo mitir oo kala ah 3400 oo runway ah iyo 1000 safety ah oo ah approach area waxa la yiraahdo loo yaqaan afka qalaad waa meesha diyaaraddu hadii ay aragto oo bari ka weydo ay ku badbaadiso waana standard caalami ah oo jira oo akaaw standard okay 3400 diyaarad ku cararaysa runway-ga ahaa waxa hadda inoo dhamaaday 2400 ama 2 kiiloomitir iyo 400 oo mitir oo gabagaba ah waxa ay leedahay 2 runway mid waa ka laga degi jiray gudoomiyaha gobolka iyo degmada iyo baa yaqaan iyo dadka iyaga waa tigi runway 0227 baa la yiraahdaa waa runway-gaas inuu waaga inuu shidaal helo iyo nimco iyo samaysan doono baaral waxyaalaha loogu xamdiyayo ilaah weeye oo aeroboorkan ka suura galay inuu international commercial airport noqdo waxyaalaha ka suura galay weeye hadeerna wuxuu noo ahaanayaa runway garayvala oo ciid ah oo hadii diyaaradda ama dabqasada ay ku degi karto sababtoo ciidu yada dardamisa shuruudaha ayna kamid tahay international ku noqonaya aeroboorkeena kan magaciisa waxa la yiraahaa 0927 aftirsiyaha suleeyay halka waxa ku arki doontaan tiro 720 hagee ku taal waata midigteena 720 baa ku taal waa jahadaas حاجة أمريكا اللي وجهه هو 27 كاس حاجة أمريكا إنه كسر جانساننا و 090 أبترسيها تاسوي كرونك تاسوي مركا وحلو تاجنا هاي مركا 0927 كي